ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Science 24 maanta waxaan ka hadlanaa area-da shape marka la compression lagu sameeyo marka dhowr form oo kala duwan ama dhowr shape oo kala duwan marka la isku daro kadib lagu dhaho soo saar area-deeda marka waxaan soo banaa casharada ku horreeyay shape kala duwan oo ah basics sida circle oo kale triangle oo kale trapezium oo kale square oo kale rectangle oo kale kuwaas oo waxay ahaayeen waa basic shapes marka shape-kaas hadii la isku daro oo la isku dhafro oo lagu dhaho soo saar area shaygaas si loo soo saar lahaa marka qaarkood shape waa la isku daraa shape fara badan oo la isku geeyay marka qaarkood shape oo la isku daray shape laga jaray marka marna area waa lagu darayaa hadii shape dhowr shape la isku daro area waa isku daraysaa shape area soo saar gaar ahaan soo saarsa kadib isku daraysaa hadii shape-kii qaarkood laga jarana oo shape intii la isku geeyay kadibna shape laga jarana shape-ka intii isku jirtay waa isku daraysaa intii ka go'nayna waa ka go'naysaa marka tusaale ahaan kale waxaan calaamadin hadeer shape-kan calaamadinay waxa lagu yiri soo saar inta la calaamiyay area-deeda soo saar marka hadaan shape-ka soo eego waxaan arkaa inuu ka kooban yahay laba qaybood oo hadaan hadeer saa u kala baro waxaan qaybta hoose oo rectangle iyo qaybta sare oo square ama waxaan u kala bari karaa sida kore baan u kala bari karaa kor baan raaci karaa marka hadaan kor u raaco waxaan noqonaysaa shape-ka rectangle-ka sare iyo rectangle yar waxaan ka sameysmay yiriisa marka labada area baan soo saarayaa kadibna labada area baan isku darayaa marka tusaale ahaan kale hadeer hadaan saa u kala qaybiyo oo halka saa u kala jaro waxaan haystaa area 1 iyo area 2 labada area aan haystaa hadaan doono choice-ka aniga baskana magaxsan kala qaybiyo hadii aan saa u kala qaybiyo laakiin choice-ka anaga hadaan kor saa u kala qaybiyo iyo hadaan saa u kala aan hoos kala qaybiyo marka area 1 oo lagu daray area 2 waxay la mid tahay area-da shape-kaas marka area 1 waxaan ku helnaa waa rectangle areas waxaan ku heli jirnay waa dhererka oo lagu dhuftay ballaca marka dherer lagu dhuftay ballac oo area-da rectangle-ka hoose marka maadaama rectangle-ka hoose areas inta tahay oo lagu daray area-da labaad marka area-da labaadna waa maxay waa square marka laba dhinac maadaama laba dhinac isleeyihiin waa square marka square waxaan ku heli jirnay hal dhinac waa dhinac la isku geeyo waa side squares marka kan wuxuu noqonayaa dhererkiisu inta dhan waa 17 maadaama inta 17 tahay waxaan iska jarayaa 7daas maadaama inta aan rabo marka maxay soo harayaa 17 ka jira waa 10 waxaan noqonayaa 10 centimeter oo lagu dhuftay ballac oo ah 4 centimeter oo lagu daray kana side square waa hal dhinac soo qaadanaysaa 7 centimeter oo lagu dhuftay 7 centimeter marka maxay soo haraya waa 40 centimeter square oo lagu daray 49 centimeter square maxay soo haraya 89 centimeter square marka intaas waa area-da shape-kaas haddana shape-ka labaad u nimaano shape-ka labaad wuxuu ka kooban yahay waxa lagu yiri soo saar area-da inta la calaamadiyay ama la xardhay ama calaamad la mariyay marka hadeer 4 baan ku haystaa area meeshaas 4 area marka waa area-da koowaad oo awana area-da labaad area-da saddexaad iyo area-da afraad afarta area marka area 1 area 2 area 3 isku daraya area-dana maadaama ay ka jaran tahay aan la calaamadin waan ka goynayaa marka waxaan ku helayaa marka area-da shape waxaan ku helayaa area 1 oo lagu daray area 2 oo lagu daray area 3 oo laga jaray area 4 marka intaas oo area soo saaray marka area 1 waxaan ku helayaa maadaama square tahay waa iyadu waa side square oo lagu daray area 2 oo maadaama ay tahay rectangle dhinac dhererka lagu dhuftay ballaca oo lagu daray area 3 oo waa half of circle marka circle waxaan ku jirnay area-sa waa pi r square maadaama ay daba half get tahay laba aan u qaybinayna oo laga jaray hadaba area-da circle-ka yar dhammaystiran marka circle-ka dhammaystiran waxaan ugu heli area-sa waa pi r square marka inta markaan soo saaro inta un baan ku helayaa marka area-da shape-kaas marka waxaan oranayaa area-da waxay la mid tahay kan side square waxay la mid tahay waa 7 centimeter oo la isku wargaray 7 oo la isku wargaray oo lagu daray dhererku waa 20 centimeter oo lagu dhuftay 10
centimeter oo lagu daray bay waxaan u soo qaadanaa 3.14 oo lagu dhuftay maadaama marka diameterku uu yahay halkan 10 anda waa 5 waxaan odhanaynaa 5 centimeter oo la isku wargareeyay ama waxaan karaa 5 lagu dhufto 5 oo laga jaray kan waxaan soo qaadanayaa 3.14 marka tanna circle-ku maadaama 4 yahay diameterkiisu waxaan noo saaraa 2 oo lagu dhuftay 2 centimeter oo la isku wargareeyay kow xaggan labaan ka helaa labadaas aan helaa sorry khali ahaada xaggana looqay 2 marka area waxay la mid tahay hadaan hadeer 7 hadaan ku dhufto waxay la mid noqonaysaa 49 centimeter square hadaan 20 ku dhufto 10 waxay noqonaysaa 200 oo centimeter square 3.4 lagu dhuftay 25 min 25 lagu dhuftay 3.14 oo loo qaybiyay 2 waxay noqonaysaa 39.25 centimeter square oo laga jaray hadaba 3.14 oo lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 waxana mid noqonaysaa 12.56 centimeter square marka inta hadaan kala jaro waxay soo baxaysaa 275.69 centimeter square marka area shape ka san ku heliyaa marka waxaan garanaysaa aad saasa ku saaraysaa marka rabtid inaad soo saartid shay areas marka kaliya waxa rabtaa magaranaysaa markii combinationka area la isku daro ama magaranaysaa form magaranaysaa inta soo firshidan magaranaysaa form la isku daro ama form kala duwan kala isku daro waxa ku soo saaraysaa formkii kadibna hadii form magaranaysaa qayb ku darsantana waa ku daraysaa hadii qayb ka jirantana waa ka jiraysaa laakiin kaliya waxa way ma taqaana marka qaar kood dhinacyada ma taqaana waa xogaa si dadban loo dhigaa marka muhiimada waxa weyn xogaa fikirka dhinacyada si isu keenayaan magaranaysaa dinaca soo saartid marka ka ku shanac asagana assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh